haddaan dhamilo dareerin diiwaan gelin loo dhaqaaqin haddaan dhamilo dareerin diiwaan gelin loo dhaqaaqin codkeenu miyuu dhaboobin markii food loo dhaqaaqo codkeenu miyuu dhaboobin markii food loo dhaqaaqo codkeenu miyuu dhaboobin dhulkaa hib kaga baahan dhulkaa hib kaga baahan inaad sharcigiisa dhowrto midabka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo dhulkaa hib kaga baahan dhulkaa hib kaga baahan inaad sharcigiisa dhowrto midabka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo dhawaaqiga maqlow dhagan uglaado ugu yeesho weligiin dadkaygo dhawaaqiga maqlow dhagan uglaado ugu yeesho weligiin dadkaygo intuu dhayalsado waliba dhinac maro diiwaangelin intuu dhayalsado qofkii waliba dhinac maro diiwaangelin markay doorashadu dhacayso codkiisa muxuu ku dhiiban codkiisa muxuu ku dhiiban codkiisa muxuu ku dhiiban codkiisa muxuu ku dhiiban dhulkaa hib kaga baahan dhulkaa hib kaga baahan inaad sharcigiisa dhowrto midabka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo dhulkaa hib kaga baahan dhulkaa hib kaga baahan inaad sharcigiisa dhowrto midabka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam halkan aan idinkala hadlaynaa waxa weeye iminka halkan aan idinkala hadlayno waxaa la yidhaahaa tuulada ceeg waxaanu taagannahay meesha la yidhaaho garagarada ceeg halkani waa meesha ugu barwaaqo badan kulka gugii garagarada iminka backgroundka inaga dambeeya biyaha ka buuxsama ilaahay nimco iyo barwaaqo ayo dhulkeena dhigay inkastoo gobolka togdheer uu maanta laga hayaamay oo looga kala hayaamay waqooyi oo xeebta ah iyo galbeed oo dhinaca xuduudka ah waxaad moodaa hawd koonfureed looga hayaamay haddana dadku isdiiwaan gelinayaan iminka waxaanu soo marray 8 tuulo ayaanu soo marray 8daa tuuloba wacyigelin ayaanu la soo marray waanaanu soo kormeeray dadka iska diiwaan gelinaya way badnaayeen waxa jira de kolleyba technical problem lama waayayo oo maxay haytay mararka qaarkood qalabku shaqaynaya laakiin waxyaabahan ku diirsaday tuulooyinka ku soo arkay waxa kamida iyadoo bahalihii solarku u shaqaynayaan ayaa satellite loo suray dabeetana internetkuna uu shaqaynaya aad iyo aad
ayaan maxay haytay hawshu ay si fiican ugu soconaysaa waxaa loo baahan yahay musharaxiinta iyo dadweynaha kale ee siiba mas-uuliyiinta gobollada iyo degmooyinka in ay ka caawiyaan dadka wixii itaal daran ee doonaya inay dub isu register gareeyaan ee galay xuduudka in dub loo soo celiyo at least yacniga caawimo loo fidiyo waxaan kaloo ugu baaqayaa musharaxiinta inay iyaguna ka hawl galaan waayo ninka musharaxii hadhowto wuxuu u baahan yahay dad u footeeya foodkuna iyo doorashada qabanqaabadeedu kama soo hadho inaad hesho cid codka ku siisa cid kaa codka ku siinaysaa waa inaad ku tala gasho qolada magaalada degan iminka iyo qolada kale ee debadaha joogta sidii aad usoo guri lahayd waxaa kaloo aan ugu baaqayaa wixii dhallinyaro ah ee da'yar inay isregister gareeyaan ee 2016kii ahaa ilamaa 10 jirka iminkana ilamaa 16 jir noqday diiwaangelintani fursado badan bay ina siisay oo ka mid tahay in hadhowto kaadh bedelasho la sameeyo ninkii doonaya uu xor u noqdo isagoo kaadhkiisii haysta meeshuu doono inuu ka foodo ka laascaano jooga ama ka ceerigaabo jooga hadduu doonayo inuu hargeysiye berbere ka footeeyo in kaadhka loo bedeli doono waqtigaasina soo socdaa aad iyo aad baan idinka salaamayaa harada ama maxay haytay ciig tuulada ciig oo maxay haytay ka soo qabanayo maxamed cali hayste xooghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga gudoomiye ku-xigeenka xisbiga u cudbaa warbixintii iyo fariimihii dadkaba dhameeyey mar labaad baa waxaan ku celinayaa hal naaskeed qofkii gaadhaa reer togdheerow ha isdiiwaangeliyo oo ha qaato dubufuridda ka qayb galo muddada gaaban inuu helo runtiina waxaan komishinka fariin halkan u marinayaa ilaa maanta tasforaskii iyo komishinkiiba waanu garaacaynay waxa weeyaan meelaha qaarkood oo runtii aan ahayn laamiyada oo ay ka mid tahay magaalada cali saahid laga bilaabo saaka markii la ysidhi mishiinka istaara ilaa iminkada shaqa kama socoto sidaa daraaddeed aanu dhaliilayna maaha laakiin waxa weeyaan in wax laga qabto oo muddada halkaasi kaga naafatayna dee xagga dambe laga daro 56 goobood ayaa gobolka togdheer hadda laga soo sheegaya oo ay shaqadii aanay sidii la doonayay uga socon alxamdulillaah boqolkiiba 60 loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo bulshooy kudhiiro dhulkaaga libintiisa ku dhaaqo kudhiira bulshooy kudhiiro dhulkaaga libintiisa ku dhaaqo wata guushii dhawaatay wata dhabadii la qaaday wata guushii dhawaatay wata dhabadii la qaaday wata midnimadii dhabowday diiwaangelin loo dhaqaaqay diiwaangelin loo dhaqaaqay diiwaangelin loo dhaqaaqay diiwaangelin loo dhaqaaqay dhulkaa hir kaga baahan dhulkaa hir kaga baahan inaad sharcigiisa dhowrto midibka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo
hiil kaga baahan dhulkaa hiil kaga baahan inaad sharcigiisa dhowrto midibka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo sallallahu alayhi wasallam goobtan aanu taagannahay waa degmadii ugu dambeysay ee la magacaabay dawladda Axmed Maxamuud Silaayo waxa weeye masallaha gorod ayaa la yiraahdaa run ahaantii waa dhul aad iyo aad u qurux badan dadku run ahaantii sidii aan horeba idinku sheegay waa laga kala hayaamay dadna waxay qabteen dhinaca gubanka dad kalena waxay qabteen dhinaca iyo xuduudka ay ka talaabeen kullayba dad badan baa laga soo daadgureeyay xuduudka oo halkan laga register gareeyay ama laga diiwaan geliyay dadka gobolka Togdheer meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqayaa in diiwaangelinta ay ka qayb galaan waayo diiwaangelintu aad iyo aad bay muhiim ugu tahay waxay muhiim u tahay in qofku waxna doorto lana doorto waxa weeye ama waxa eedi doontaan fartiina ama fartiina ayay idin najixin doontaa hadda dad wanaagsan doorataan oo inta isdiiwaan gelisana dad wanaagsan doorataan de adeegu soo gaari doona halkani waxa weeye waa degmooyinka ugu dambeeyay la magacaabo waxba laga qabanayaa oo dadweynaha ku dhaqanay aad iyo aad bay inkastoo xoololay u badan yihiin haddana iskuulkii iyo maxay heetay dawladihii hoose iyo wixii oo dhan waa la soo gaarsiiyey adeegyadii waxaanu rajaynaynaa in intaa in ka badan loo qabto degmooyinka dhulkeenu aad iyo aad buu ballaaran yahay in la dhayalsado maaha shacabka iyo dawladduba in la dhayalsado maaha dadku adeeg bay badan yihiin ayay u baahan yihiin in adeegga loo soo fidiyo nooc kastaba haadee adeegga maxay hayteen nabadgelyada adeegga caafimaadka adeegga waxbarashada in loo soo fidiyo ayay u baahan yihiin dadku diyaar bay u yihiin inay waxna doortaan lana doorto waxaa maxay hayteen dad badan isku hawlayaan sidii dadka wuxuunba halkan la gaari karaa dadkii haw tegey ayuunbaa la gaari karaa dub loo soo celin karaa dadka tegey gubanka lama gaari karo aad iyo aad baan idinku boorinayaa inaad isdiiwaan gelisaan isdiiwaan geliya dhinacay ka baxdaa waa bakayla qaleen wassalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa masallaha gorod oo runtii diiwaangelintu si fiican ay maanta uga socoto waxaan dadweynaha ku dhiirigelinaynaa inay qaataan kaadhka maanta waa maalintii shacabka marka shacabka dub talada loogu soo celiyo waxa u bannaan ciddii ay u arkaan inay wadayaan howlahooda waa ogtiinoo tabashooyinkeennu qoladeenna bariga aad bay u badan tahay marka bariga leeyahay dee limalimo meeshay ka sii bariyaysaa unbaa bari weliba hawdkan aan joogno waxa weeyaan kaadhka ha la qaato ciddaa u aragtaan inay dalka iyo dadkaba faa'iido u leedahayna doorta waannu leenahay cid gaara u ololayn mayno waxaan idin leenahay kaadhka ha la qaato kaadhka sida loo qaadanayana waxa weeyaan dadkii hore isu diiwaangeliyey wuu ka gubanayaa hadday qaataan waa wixii intaa da'doodu kortay iyo dadkii hore ee aan qaadan ayuunbay u bannaan tahay inay iminka muddadan kooban qaataan waxaa ku jira xilligan xilli kaadh beddelasho iyo xilli dadkii hore ee aan qaadanin intay isdiiwaangeliyeen aan kaadhka qaadan dub loogu furaayo oo kaadhkii duba loo siinayo taa iyadiina way iman doontaa laakiin maanta maaha 40 cisho iyo muddada aynu ka rajaynayno in kimishinku inoo kordhiyaba maadaama gobolkuna aad u ballaaran yahay duruufo abaareed iyana ay jiraan waxaan ka codsanaynaa kimishinkana inuu sidii gobollada kaleba gobolkan xaaladdiisa aad hoos loogu eego oo muddada weliba loo dheeraysiiyo intii gobollada galbeedka loo kordhiyey waayo duruufo adag baa runtii taagan ilaa saaka waan soo soconnay meelaha qaarkood baan lala soo gaadhin ilaa haddada markuu mishiinkii ka baktiyay aan mishiinu imanin oo yoom dhammi uu runtii ka lumay sida cali saayid oo kale sidaa daraaddeed waa in gaar loo eegaa baannu aaminsannahay
dadkana waxaanu leenahay hal naaskeed qofkii gaadha maanta waa maalintii shicibku aarsanayey ee gacantooda uu ku aarsanayey ee qofkay doonayaanna ay dooranayeen kay doonayaanna ay eryayeen sidaa daraaddeed kaadhka in la qaataa muhim bay u tahay waxaad tabaysaan taa kaga baxaysaan waa taa arlada waa laga guuray oo sida xaqiiqada ah dhulka waa laga fog yahay marka itaalka iyo waanu dadaalaynaa waxaananu leenahay hoos ha nolola eego wakhtiga nagu kooban ee 4 cisho ah iyo dadkii oo naga durugsanoo deegaanka laga guuray taana waxaanu leenahay komishinka qaranka hoos ha noola eegaan wakhti ha nala siiyey intii gobollada kaleba la siiyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaad sharcigiisa dhowrto hilibka nabadana adkayso diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo diiwaangelin loo dhaqaaqo وعبد الأمين عبد الله محمد تلفزيون كعالمي جوبنيما تي في مقالة برعي حرنت قبل كتقدر